madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo wareysi gaar ah ku saabsan amuuraha gobolka ka taagan gaar ahaan hadalhaynta ka taagan maalgelinta saddex geesoodka ah ee dekada Berbera oo dawladda Soomaaliya ay ka hortimi sheegtayna inaan lagala tashan ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu telefishinka Home Cable u sheegay in marka horeba aanay meesha oolin Soomaaliya inay tala ku yeelato mashruucaasi maadaama ay diidan tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ahaayeen laba dhinac oo midnimo sameeyay lixdamaadkii qolada xamar joogta waxay diideen in Soomaaliya oo qoladii Talyaaniga go'aysan jiray iyo Soomaaliland ay ahaayeen laba dawladood oo si ikhtiyaari ah oo xor ah wax isku darsaday 1960 horta eraygaas diiday inuu dafare su'aash marka waxa weeye xoog ku qabsadeen Soomaaliland oo way ka adkaadeen oo waa meel ay ku qabsadeen bal sida ay ku diideen in la soo ahaa laba dawladood la isu yimid garan maayo waxaan ku weydiiyey Berbera nimanka la anaga xukuna ma iman karaan talaa ka taliyaan iska daayay ma iman karaan hadday iman karaan oo cirkeedii badeed soo mari karaan ha ka taliya haddii kale waa iska hawaawiyey iminka dekada Kismaayo kama hadlo waxaa joogta Abu Dhabi iyo qoladan Carabta joogta Kismaayo boosaaso jooga kama hadlo fargariyada waayo waxaan laba dawladood jaaro oo is ixtiraamaan أنا أرتاحن قلنا وإحنا قد حيرنا ورالتنا ما هذا madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa sidoo kale uu ku adkaystay in Soomaaliland ay hirgelinayso heshiiskaasi ay gashay heshiiska waa la gelaya waa u soconaya si ay heebaan ku dhamaanaya ama anaga beesheega waxba socodsiin kari waay oo iyaga qabsan ama ayagu baa dameer ciiska noqon halkooda ka hadlay waa u soconaya hayba dadeenka uu qabsanay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ashkata ay u gudbisay golayaasha caalamka gaar ahaan jaamacadda Carabta sidaas awgeed Soomaaliland sidee bay ula tacaalaysaa arrimahaasi haday dawladaha qabteen dawladaha arrimaha waraaqawaan u qoray dhammaan inta uu caalamka iyo dawladaha waraaqawaan u qoray waxaanu ka hadalaa anagu xorriyadeeda iyo deelqaafka ah anaga oo laba qof wax isku darsaa laba dhinac oo kala baxay dhinac qura aqoonsadeen inay gardarrada inay qalad ma nagu sheegay laba dawlad waan sunnad aan kala baxay ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu telefishinka Home Cable weydiiyay sababta xilligan Soomaaliland ay u go'aansatay dib inay u dhigto wada hadalkii qorshaysnaa in Djibouti ay ku kulmaan madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya xaaladdan imika taagan mid saamaxaysa ma aha in lagu hadlo wada halkaas afku baar kala jooga laakiin hadalka mar walba bini'aadmu hadal buu ku dhamaaday wixiisu wala istilaa waa buu qista dhaca hadal buu ku dambeeyaa marka inuu hadal ima doono la hadli doono hal kasta gaadhay waan ogsoonahay waan ogolahay laakiin marka jawigiisu daa u ekaado hadli kara marar baa jira hadalka aan furray bad orada ku isbaam kara marka maanta tashanka iyagu waa ma jirtay waa jiraa maxaan ku hadalaa marka in arkaan inuu jiro oo laba dawladood istaga noqono oo kumiya kuma wada hadalay isnaada istaadka ugu hadalaa muxuu yaa wada hadalay imika ma gobol Soomaaliya kamid ah la hadlay dawladiisii ma laba dawladood isqabtay wada hadlay taawiya keeshii taano gobol lagu tagayno wala dawladda baraysan mannahin war laba dawladood heshiyo kala tagayno ma wada hadalay ma wada noolaana waan u soconaa wixii taa ka hooseeyay isku daalin